mudane madaxweyne marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa booqashadaada inaad noogu timaado inaad timaado xamar waa soo dhaweyneynaa inaad dhibaatooyinka jiro dalka ka jira aada u timaadeen inaad qeyb ka daaweysaan waa soo dhaweyneynaa waxaan rabaa hal su-aal oo laba noocaan rabaa inaan waxyar ku weydiiyo mana ahan wax nidaamka khilaafsan waxa weeye waxaa u timaadeen inaad dalkii aad waxyaabihii jiray in la turxaan bixiyo oo isla ogol dalka nabad dariiqii uu ku socdo hore inuu u socdo waxyaabihii a ku maqnaydeenba ka mid bay ahayd dalkii oo xukuumad aan lahayn ayaad waxaa ka mid ahaa qodobada a ku maqnaydeen haddii heshiis la gaaro waxaa fuliye waa xukuumadda waxay ahayd waxaan u arkayna inay ahayd qodob muhima oo aada muhim ugu ah isku imaatinka iyo dowladnimada u ahaa baan kolley anigu u arkayey hadda waa timaadeen dalkiina xukuumaddii ma jirto waa maqanta maxaa u timaadeen inaad madaxweynaha keligii la heshiisaana mase inaad soomaaliya sidii aada sheegtay si ballaaran in looga wada qeyb galo hadday tahay sidaas haddee mar haddii aan xukuumadi jirin haddee wixii la qabtaaba waxay iska noqonayaan wax shaksiyaaday noqonayaan ma idinkugu jirtaa qorshaha inaad muddada joogitaankiina laga faa'iidaysto oo madaxweynaha jamhuuriyadda aada ku qancisaan inuu ogolaado dalka inuu ra-iisul wasaare u magacaabo xukuumadna loo dhiso ilaa hadda waxaa weeye gacantaa ku garoorsi baan hadda arkaynaa maaragtay oo ah xukuumaddii horena waa la riday wuxuu yidhi ninkii alla bariga aan ka dhargi doono agagaskiisaan ka aqan haddana nooma muuqataba rabitaan inuu dowlad iyo ra-iisul wasaare la dhisayo meel dhexe in wax lagu wadaad moodaa ma qeyb baa ka noqonaysaan waxaas mase sixitaankaa ka qeyb galaysaan aniga intaasa su-aasheeda dareenkii cabdi qaybdiid iyo xaaji muuse suudi iyagana runtii waa ku mahadsan yihiin waa fiican tahay arrimaha soomaaliya in baarlamaanada lagu xaliyo waayo baarlamaanadu inta badan waa meelo obin ah oo aan niqaashku u furan yahay saasaana daawada ku jirta sidaasaana dhaqanka soomaalida ahaan jirta in geed laysugu yimaado oo la wada hadlo dabcan puntland in golaha xukuumadda la dhiso annaga markay horta siday uga baxday waan ka hadalno ma rabo inaan ku noqdo oo waddadaas waxbaan ka arkayn dhinaca sharciga ah haddana waxyaabaha baaqashada keenay isma lahayn xukuumaddiioo baxday baa 15 baa la imaanaya qorshaha nooguma jirin oo waxaan islahayn de mar haddii xukuumaddii saldhigga u ahayd shaqadan meesha ka baxda oo weliba guddiyada iyo arrimaha farsamada la rabay inay hogaamiso waxaan maleynaynay oo annagu runtii waktiba siinay oo weliba xilliyadaas annagu xiriir badan lama soo sameynayn maxaa yeelay maanan rabin cidda kaloo imaanaysa inaan talo badan ku yeelano maadaama tii horeba aan talo ku lahayn waktiguna gabaabsi yahay waxaan nidhi ciddii markaas ay u arkaan dadka ay taladaas khusayso alla ilahay talaha ka soo gaaraan saasaa annagu runtii qabnay waana u sheegay runtii madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka intaba waxaan ku yidhi shirkii kaa ka horreeyey garow ku dhacay waxaa loo ballansanaa bishii 3aad wuxuu qabsooma bishii 11aad 2 biloodoo dib u dhaca buu dhacay eebna kama imaan haddii waktigu ku yaryahay oo usbuuc dib loo dhigo oo hawshaas lasoo xalinayo waxba naga carari maayaan shaqada unbaa noogu qurxoonaanaysa haddee
markii dambe waxaan u muuqanay puntland keliya inay ka hadlayso arrintaasu rag badan oo saaxiibadooda sarina waxaa lihi runiyooda maxaa keliya kaa qaylsiinaa maa caadi iska dhigtay warkaasaa badahan batee marka dadkii waxa waa la kala qaybsanaayo reerkii lahaaba haddaysan raadinayn waa arrin ruuxaddeeda hadda waxaanu imid waxaa ihi tal malaha ma rabaan nimankuya bes ka gudub laakiin haddii sidaa hadda u sheegtay weli bahashi aad daraynaysaan hadda codkiina si fiican loo maqlo waa mahadsanti